daawadayaal duhurnimadkii maanta madaxweynaha somalilan ayaa isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada mas-uuliyiin kala duwan ayuu qaar magacaabay qaarna xilal ka qaaday xubnaha xilka laga qaaday waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta somalilan sheekh khaliil cabdilaahi axmed sheekh khaliil xilka qaadista saad u aragtaa si wasaaradda diinta iyo qaabta muddo dheer ood wasiirkeeda ahayd maxaa kuu qabsoomay maxaana lagu xasuusan doonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وهرين وحنا هلكن سلاني بوغادين وقدريا شعب كرير سوماليلاند قارهان وريها لغمان ما ارتكولن كانوا إلي شيء ويصود أنتي حقة وحنا لي وهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب إله سبحانه وتعالى مهضله إلهي سبحانه وتعالى مارتي قرشها إسكاله والدنيا معمولة وحن آديات وهررت وجمهد علنية مدحونا قرق سوماليلاند مدن مسبح عبدي حلك وإيج مضي عن مدة أفرت سنوات يجوج أسوهي ورنتي أهيد مدة عن ست دو وجو صاحبنا كوه صاحب وهين مدحونا ورتي سوات دورتي إنه يقدرين أركينا قبل كره مدة أن لهينا رنتي وحن أركي إن سف عن أو عدا ضاعد ماء أو وطنية أن ولدت شقي يسوون قدرين سنتاس لكن سنها دولة نمو أيا وحسكية هاي المر والبا بالتيم لقوا وشقة الله هيو إن هالكسي هالكوسي هجاتيان وقسيهور مريان أنا waxaan kala wareegay sheekayga sharafta badnaa Sheekh Maxamuud Suufi oo runtii meel soo gaarsiiyay arrimaha diinta iyo waxqabadkii diinta iyo horumarintii dacwadda runtii halka uu soo gaarsiiyay anigu waan ka sii anbaqaaday way garab taagnaa saaxiibaan oo ahayn ku hayn shaqada markastoo tala doonayay waan u yeeri jiray markastoo aan maartay hawl qaran qabanayno waan u yeeri jiray wuxuu ka garabkayga taagan uu ka mid ahaa taasuna waxay keentay inaan halkii kasii horumariyo oo dad markhaati madoon ayay tahay madoon baan ujeeda ayay tahay hawshaan qabtay iyo sidii aan u horumariyey arrimaha diinta oo runtii dad arkaysa anigoo dhalinyaro ah oo garhku aan wada caddayn ayaan hawshaa bilaabay muddo waxaan soo hayay imika sanad iyo hal bila 10 sano 12 sanood baan ujeeda 12 sannadood iyo hal bil ayaan soo hayay hawshaas halkii soo gaadhayna Somaliland oo markhaatiya madaxda ka markhaatiya waana sababtoo igu doortay Musabix Cabdi madaxweynaha qaranku markuu isu xilka ay magacaabayay inaan sii wado waxa runtii aan isleeyahay xilli ilaahay qadaray ayuu madaxweynuhuna ilaahay subxaanahu wa ta'aala garansiiyay inuu cid aan rajaynayo in iga firfircoon badan tahay iga da'yar tahay iga dhalinyaraysan tahay iga aqoon badan tahay marka dheego dhinaca shareecada dad doonto oo aan saaxiib lilaahi ahayn oo aan muddo dhalinyaranimadaydii ilaa 83 aan saaxiib soo ahayn ayuu hawshii u igmaday imikana waxaan ballan qaadayaa inaan horta madaxweynaha markasta aan xasuusto oo aan mahad celiyo oo aan u duceeyo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo xilka intuu hayo oo walibana ragga uu doortayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga dhigo rag khayr badan oo hawsha la fuliya oo hawsha ilaahay isagana uu saaray isla garab taaga oo caawiya inay u noqdaan tiimka maanta uu doortay ayaan rajaynayaa qorshaha hadda weydiiso qorshahaygu waxa weeye kow inaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala caabudo sidaan hore ugu caabudi jiray inaan dadkana walaaleeyo hawshan qaban jiray ee samafalka ahayd iyo hawlihii kale dacwadeed aan waday marka laga yimaado nolosheeda gaarka ah inaan sidii ugu sii jiro aan qabto ayuunba ay qorsho ah kama fogaanin wasaaraddii kama fogi waan garab taaganahay shaqaalahan garab taaganahay garab taagnaayeen waxaan garab taagnahay haddii la yiraahdo madaxweynaha iyo ciddii uu igmaday imika hawsha oo ah Sheekh Cabdirasaaq Ali Xuseen Albani lagu magacaabo runtii magacaana kutubtii anigu aan 83 Sacuudi kala imi ama aan ka keenay ayuu aad u akhrisan jiray iga qaadan jiray saas magaca Albani kula baxay ilaahay khayr siiyo isagana Allah u fududeeyo madaxweynahana waxaan leeyahay ilaahay garabka ha galo xilka inta ku hadhay iyo intan wada noolahay labadeenba Allah inoo sakhiro inoo fududeeyo hawshan maanta aduu igmatay Sheekh Cabdirasaaqna waan isla garab taagi doonaa intii karaankayga
waa isla garab taagi doonaa dalkana somaliland waad ka warhaysaa oo adaaba goobjoog ahaa dhaawacaygii oo dhiigaan u shubay garanaya oo runtii igu mahadiyey iguna ixtiraamay adiga rag badan oo kaloo maartay dadkii qarankan soo halgamay ah way ka warhayaan markaana dhiigaygaan u shubay iminkana waxaan u shubay wakhtigaygii iyo caqligaygii iyo aqoontaydii iyo maskaxdaydii intaan kari karayey wax ceeba oo maanta cid alla cid soo sheegi karta oo aan u geystay waxqabadka soomaalida maamaahaday in meeshaad joogto amba gabow baa ka kaxeeya amba geeri baa ka kaxaysa marka geerida ilaahay kamuu dhigin laakiin da inaan kusoo noqday oon soo shaqeeyey ayuunba markhaati ahayd waanu mahadnaqayaa bulshada reer somaliland ee ixtiraamtay ee la shaqaysay ee aad iyo aad magacayga u dhowrtay iyagana waanu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala dalkan soomaaliya ha barakeeyo ha ka dhigo himiladaynu rajaynayna wanaaggaana ilaahay hayna gaadhsiiyo dhammaantiinna waa idin mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh diinta ayaad muddo dheer 11 sano wasiirka diinta ahayd sidoo kale xilka wasiirnimo waa xil siyaasi ah xisbiga kulmiye ma kasii tirsanaanaysaa si siyaasadii dhinaca mid kaga sii jiraysa xisbiga kulmiyadda waa xisbigayagii waa xisbi runtii aan muddo dheer hawlwadeen usoo ahaa iminkana runtii golisa dhexe kuma jiro laakiin berigii gola dhexe lasoo magacaabayey ama lasoo dooranayey anigu ana wasiiro iskama dhigin waxaan doonayay inay sal ballaaran uu yeesho xisbigu marka dad kale maadaama xil wasiirnimo aan hayo xilkii xisbigana dad kale ayaanu magacaabay oo aan ku taliyey laakiin inta uu dee hawsha xisbigu hayo iyo mar kastaba waa garab taagana wixii khayra ee wanaaga isla garab taagana insha allah waanaanu ku bogaadinaynaa hawsha ragga haya in ilaahay u sakrana waan ugu ducaynaya ugu dambeyntii waraysigan aad siinayso xilka qaadistaada iyo arrimo maalmihii ugu dambeeyay la hadal hayay oo habeen dhowna aad ka hadashay jaamacadda abaarso iyo waxa miyay shaqo ku leedahay ma wax shaqo ma laha wax alla wax shaqo ay ku leedahay habeeyartay ma jirto baaritaankeeda kolleyda waxaan ku wareejin doonaa uun xafiiska ciidanan ku wareejinayo ma ku wareejin doonaa waana hawl runtii inoo socota reer somaliland horaan ugu sheego waxaan ku yidhi wixiina gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaa wax kastoo wanaagsanna waynu ku faanaynaa wixii kastoo waxayna dhib noo keenayana waynu dee muxuu ahaayey waynu ka wada dadaalaynaa waxaan rajaynayaa dadka reer somaliland halkay arrintaas la gaadhay kumay habboonayn runtii waxay ku habbooneyd in arrimahaas oo kale yacni maanta qof kasta oo somaliland nacab amba ujeeddo kale wuxuu soo qaadanayaa abaarso runtii dhallinyaradii caruurtii laga ka aflaxday ee la diray ood maqlayseen habeenkii dhawaato soo hadlayeen siday uga sheekeynayeen diintooda uga sheekeynayeen siday diinta ilaah u haysteen siday maqnad yihiin dad aqoon-yahan oo hormaray siday yihiin aad iyo aad baa loogu khushuucay runtii dee sida loo saxayana waxa u xil saaran dowladda somaliland baa xil saaran xilkeediina way wadataa waajibkeeda way gacanta ku haysaa madaxweynuhu ka hadlay anigu waan ka hadlay anigu aniga sheegay yidhi anigu wasiir baan ahayn 2009kii masaajidka ku yaala anaaba dhisay macallimiintii masaaridaheeda shareecada iyo dhigaysay iyo luqa carabiyana anaaba keenay waxa imkana baaritaanka wax kale ma ahayne wixii maamul soo cusboonaaday ayuu ma ahayn bal khadaba taga sida loo sheegay ma u jiraan mise ma jiraan intaasba intana waa lagu jiraa waan mahadsantihi tahay daawadayaal waxaan halkan waraysi kaga qaadanay wasiirka hore diinta waqaafta somaliland khaliil cabdilaahi axmed sheekh khaliil luqmaan maxamed faarax iyo ridwaan mm t v hargeysa